maanta oo taariikhdu tahay 9 bisha 10aad 2023 maalin isniin ah waxaa maanta shir nooga furmay golaha baarlamaanka shirkaas oo isugu yimaadeen gabdhaha haweenka baarlamaanka xildhibaanada waxaana shirkaas noo soo qabanqaabisay gudoomisada baarlamaanka gudoomiso Shamso ayadoo runtii oo ay isku keentay ay ahayd in maanta aan ka hadalno baaqi uu madaxweynaha uu noo soo jeediyay in dagaalka uu dhici rabo phase 2 ama la qaadi rabo qaybtiisii labaad runtii gudoomiso Shamso waan kaga mahadcelinayaa anigoo ah wasiiradda haweenka ee Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka runtii aan shirkaas ka soo qayb galnay waxay noo ahayd bogaadin iyo dhiirigelin taasoo looga hadlayay sidii aan uga qayb qaadan lahayn qaadista dagaalka runtii aan u garab istaagi lahayn ciidamada qaybahooda kala duwan runtii waxaan taas aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaheena mudane Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo runtii iclaamiyay in la qaado dagaalka qaybtiisii labaad waxaana runtii aan nahay lafdhabarka bulshada haweenku waxay yihiin in ayaga ay bilaabaan wax walba annaga waxa waaye colaadaan bilaabina ma joogsato dagaalkii nabadaan bilaabnana way waartaa marka waxaan rabnaa insha Allah bidnillaahi kariim haddaan nahay mas'uuliyiinta haweenka Koonfur Galbeed in aan garab istaagno ciidamadeena Koonfur Galbeed ee runtii dagaalkaas u diyaar garoobay taasoo aan ugu garab istaageen hiil iyo hoo waxaan kaloo runtii halkaan baaq ugu soo jeedinayaa waxay tahay gabdhaha mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed ee ku matala baarlamaanka federaalka aqalka sare qurba joogta ganacsatada Koonfur Galbeed runtii Koonfur Galbeed waa deegaan aad iyo aad u baaxad weyn madaxweynaheena Koonfur Galbeed wuxuu noogu hiiliyay ee kuraastaas aan maanta ku fadhino qof walba magaca iyo mansabka ugu fadhiyo wuxuu ugu fadhiyaa waxay tahay in aan ku matalno shacabkeena Koonfur Galbeed qaasatan haweenkeena Koonfur Galbeed runtii waad ogtihiin waadna ka dharagsantihiin cid wax loogu sheekeenayo ma jirto deegaano badan aan xor ahayn jiro oo 15 sano saarnaa cunaqabateen deegaanadaas waxaa ku nool haween waay haweenkaas 15 sano cunaqabateenta saarneed waxaa loo baahan yahay inaan ilowsiino markii dagaalkaas la qaado dadkii ilowsiin lahaa mas'uuliyiintii haweenka ilowsiin lahayd ee Koonfur Galbeed matala inaan noqono waxaan rajayn doonaa insha Allah haddii baaqayga aad maqashaan inaad ka qayb noqotaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabdhaha ku jira ee Koonfur Galbeed ku matala xildhibaanada aqalka sare qurba joogta ganacsatada inaad qayb ka noqotaan runtii waxay noo bilaaban doonaa wajigii labaad wajigaas labaadna waxaan jecelnahay ciidamada runtii Koonfur Galbeed inay ayagoo faraxsan ee dagaalada galaan ayna yihiin dad runtii garabkooda la taagan inay dareemaan waad ku mahadsantihiin insha Allah waan soo dhaweynaynaa cid kasto gacan ka geysanaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.